wasaaradda caafimaadka ee Jubbaland ayaa waxay la wareegtay deeq dawo ah oo ay ku deeqeen jaaliyadda Jubbaland ee waqooyiga Ameerika taas oo loogu talagalay in wax lagu qabto dadka ku dhaqan deegaanada Jubbaland oo qaarkood aanay haysan adeegyada aasaasiga ah ee caafimaadka. warkan waxaa magaalada Kismaayo oo xarun ku meel gaar u ah maamulka Jubbaland inooga soo dirtay Sahra Siman. wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Jubbaland Dr. Mursal Maxamed Khaliif oo maanta kormeer ku tagay dekedda weyn ee magaalada Kismaayo ayaa deeq daaweyn iyo qalab isbitaal isugu jirta ka gudoomay jaaliyadda beelaha shanta Shambare ee ka soo jeeda deegaanada maamulka Jubbaland ee waqooyiga Ameerika. Idris Shacbaan Jimcaale oo jaaliyadda u soo wakiilatay wareejinta daawada ayaa sheegay in daawadani si bilaash ah ugu deeqeen dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada maamulka Jubbaland. magacayga waxaa la yiraahdaa Idris Shacbaan Jimcaale waxaan ahay guddiga sare shanta Shambare Jubbaland ayaan u ahay maanta oo isniinta ah madashaan xafladan sharafta leh ka soo wada qaybgalay golaha baarlamaanka iyo golaha wasiirada saxaafadda ciidamada Jubbaland dhammaan odayaasha dhaqanka waxaan u sheegayaa in hadiyad soo dhiibtay wasaaradda caafimaadka ee Jubbaland beelweynta la yiraahdo shanta Shambara oo ku nool koonfurta Ameerika. sidaas darteed waxaan ku wareejinayaa amaanadaas oo naloo soo dhiibay saad idinka ku jeedin wasiirka caafimaadka Dr. Mursal Maxamed Khaliif yahel wareeg insha Allah ta'ala. dhanka kale wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Jubbaland Dr. Mursal Maxamed Khaliif oo daawadani iyo qalabkani ka gudoomay jaaliyadda beesha shanta Shambare ayaa uga mahadceliyay jaaliyadda beesha shanta Shambare garab istaaga bulshada Soomaaliyeed ee deegaanada Jubbaland. Bismillahir Rahmanir Rahiim. runtii aan uga mahadcelinayaa jaaliyadda Soomaaliyeed oo ka mid ah jaaliyadaha waqooyiga Ameerika ee deegaanka u ah Jubbaland in ay maanta noo soo dirtay hadiyad dawooyin iyo qalab oo aan halkan kala wareegay Idris Shacbaan iyo ragga kale odayaasha ah jaaliyadda wakiilka ka ah ee deegaanka u jooga. runtii waa arrin tusaale wanaagsan u noqon karta qurba joogta Soomaaliyeed ee Yurub iyo waqooyiga Ameerika iyo meelo kale oo adduunka ah jooga. mas'uuliyiin iyo waxgarad iyo qurba joog ka soo jeeda beelaha shanta Shambare oo goobjoog ka hayay munaasabadda daawada lagu wareejinayay ayaa uga mahadceliyay jaaliyadaha beesha shanta Shambare ee waqooyiga dalka Ameerika. deeqdaani oo isugu jirta daawooyin iyo qalabka isbitaalada oo la geeyni doono isbitaalada magaalada Kismaayo ayaa loogu talagalay in si bilaash loogu deeqo bulshada ku dhaqan deegaanada maamulka